buuggan milicsi runtii aad iyo aad baan horta u bogaadinayaa cabdillaahi beershiya iyo maxamed cabdi daawud dadaalka inay la yimaadeen waanaynu u baahannahay diinteenna iyo taariikhdeena iyo nolosheenna inaan wax ka qorro waxdada runtii aan u aqoon saas oo ma lahayn oo yaraantina reer xamar baan iska ahaa inta dambena wuxuunbaan ka maqmaqlay laakiin bal buugga iyo akhriskiisii inkastoo 5 daqiiqo ku yar tahay dee buug lasoo akhriyay in wax laga yidhaahdo umaan meelo yar ka taaban doonaa buuggu runtii horta kow rag badan baa taariikhdoodii ka baranaysaa weliba dhalinyarta ka baranaysaa oo soo dadaalay oo dhalinyarta waxdada ka mid ahaay oo dee diinta iyo nolosha iyo ummadda u soo shaqeeyey inkastoo dumar badanna sida buugga ka muuqataa ay halgankaa qayb ka ahaayeen laakiin nasiib daro dumarka magacyadoodii kama muuqdaan taana waan jeclaan lahaa marka dambe lagu daro waayo waxaa ku qoran gabadhii horeysay ee tafsiir akhrida يعني إن مقعد كم موضوع أنا بوان تعلان لها ولا أركتها ولا وكل دوية تاريخ ولا وذا ليه رجيت مربع بوجا وحبات كارك سوها كم إذا قفك وناك ومضى أوصم يا حبا يراده يعني مدو اللاوين تصالح وحكي يلا بلا رفلة عمر كبر صعب كياها إنك سو ودبعت بدني كتير سنين حتى أنا وحكم وقت مرك أنت الله شرحه يعني اللي تقول كل ما إنه كجرابي وفرح كقاعد يديني تايو إلا رفلة واحد يروح كلو وحيابا كلو قبتبا وين جوجو والجو حستايو أنت أساس نودك بعد وكيه رئيسي مده تيلا ماموسي يعني مركب وناك جرى قفك السمايو ومدهم إلا ويسو مركب بوجو هنا بريا إن وناك هنا اللي قلت ده المرة والبا بدل كده عمر صلاة مركب إسنا مركب تم برا صاب نقضي تدي باتري وكهيي ما تسكت تاريخ ما مركب موضوع يكتو سببوك شيء يو dib xilli buuggu wuxuu sheegayaa waxdadu inay dhalatay dadkaba inta salaada tukata ay yareyd iska daa inta diinta taqaanee weliba gaar ahaan dumarka arrintii sidaa ahayd waxay gaadhay hablihii iskuullada dhiganayay dugsiyada dhiganayay inay soo dee dhar asturan xidhaan oo masarkii iyo ama shalmadii asturnayd iyo shaar gacmo dheer ayay xidhaan kadibna dagaal culus lagu qaadayoo la yidhi ilaa waalidkii la soo geliyay hawsha oo la yidhi ma dhiganayaan iskuulka ilaa shaar gacmo gaab wax loo xidhaan timahana ay qaawiyaan kadibna tii ay keentay in inamadii dhiganayay iskuulku iyaguna ay arrintii ka gadoodaan oo yidhaahdaan annaguna waxa weeyaan shaar gacmo dheer waan soo tulanaynaa yani wada shaqaynta bulshadu wanaagga isku kaashato taana wada kasta iyo dhibkii xilligaa jiray waxyaabaha kale ee buugga ku arkay waxa ka mid ah intii aan akhriyay guud ahaan waan akhriyay laakiin meelo gaara weeyaan waxdadii oo u tawlooday muqdisho hargeysa ka tagtay muqdisho tagtay oon markaa baraarugani ka jirin laakiin urur qarsoodi ahayo al-ehel magaciisu ahaa maha al-ehli maaha al-ehel magaciisu ahaa oo qarsoodiya haddaba waxaa la yaab leh markii ay damceen inay isku biiraan aqoonta waxaa aqoon sarraysay waxdadda sida buugku sheegayo oo qoladii al-ehel waxay dhahaan waxna bara oo diintana bara oo kutubta noocaasana bara laakiin dee talada annagaa yeelanoo idin xukumaynaa laba isqaban waayey ayuu sheegayaa oo runtii markaan dib u eego soomaaliyadii berigaa ilaa maanta xilligan dambe sidan ah ama berigaa loo qaybinayo koonfuriya waqooyi siday nolosha u kala duwaneyd oo ilaa maanta waxaad arkaysaa dhinacaana waxaa ku horreeyey xagga xukun doonka waxdaduna waxay ahaayeen diinta iyo dar ilaahay unbay dee u shaqaynayeen oo sababta imika wax badani xaggaa u hoos tago oo aan ahayn un dee xagga culimada ee ganacsiga noqon karaya siyaasiyiinta noqon karaya wax badan noqon karaya marka halkaasina la yaab baa ku jira waxyaabaha la yaabkeed buugga ku arkayso waxa iyana jira culimadii hore ay jiray suufiyada iyo waxdadu ismay diidine way is ogolaayeenoo sida buugku sheegaya way wada shaqaynayeen oo way is ogolaayeen oo habeenka jimcaha mawliidka iyabay akhriyi jireen waxdadu dhalinyartu iyo manaaqibka jaylaani iyo kutub noocaas ay akhriyi jireen taasina arrin ah in dee la iskaashado oo la iska hormar raadka hore la tirtirin ayaa buugu tilmaamayaa waxyaabaha kale aan arkay waxaa ka mid ah dhalinyaradan waxdadu diintana way barayeen maadooyinka kale ee cilmigaana dadka dhalinyarta way barayeen inaan aqoontii kala maarmi karin ayaa halkaan inoo muujinaysaayoo markasta aqoontii dee dunida lagu maamulayay iyo oo dhammaanteed baan ugu aaminsanay dee wax waliba inuu diin yahay runtii oo inaan la kala saarinba in iyana halkaa ay isla wadeen oo ay dadaal kale ahayd wuxuu xusayaa culimo badan oo laga baran karo
ururo badan oo laga markor tabliiq oo kale inuu halkan ka bilaabmay Sheekh Ismaaciil bilaabay in markaa Hargeysa ahayd xuduntii diinta ayaa halkan ka soo baxaysa markaad kitaabka akhrido waan inoo soo gabagabayn doonaa 5 daqiiqo waan gaadhay runtii waxyaabaha aan kale ee laga baran karo waxaa ka mid ah in wax la qoro oo diinteenna innaga leh aynu sii yeelano culimadeenu cilmi baaris iyo qoraal aynu leenahay nolosheena wax ka qoraan oo taariikhdeena la qoro oo culimadii ummadda bilowgii ilaa hadda oo dhalinyartu yaqaanaan haddii kale dee yani culimada islaamku way baranayaan dabcan laakiin toodina wayna bartaan inaynu lahaanshaha diinta ku xogeysana halkan ka arkay oo la xuso culimadeennii hore la xuso in aqoonta ummaddaa lehe kitaabkan maanta maxamedna ma laha cabdillaahina ma laha ummaddaa leh waa la naqdi karaa waa la dhaliili karaa waxa weeyaan in taana la ogaado oo dee wixiina laynoo qoro oo la dadaalo halka ahayd waxdadii inay dhimatay ama baabaaday aniga waxaa iga soo baxday waxdadii inay nooshahay waxay u nooshahay mushkilad bay ka jawaabaysay fariin bay gudbinaysay isbeddel bay samaynaysay isbeddelkii ma dhacay mise ma dhicin buug wuxuu muujinayaa xilligaa inuu dhacay dadkii diintii barteen salaadii la tukaday kutub badan la bartay dee aqoontiina ummaddii bay la falgashay marka way nooshahay may dhiman buugga dee dhaliishiisna wuu leeyahay runtii dhaliil ahaan maanaan akhriyayn iminka laakiin dadka akhriyaa naqdiyi doona amaan iyo dhaliilba buug wali wuu leeyahay meelo yar xasaasi noqon karaa way ku jiraan oo halkan waxaan ku arkay qodobkan bogga 77aad ku yaala ogsoonow oo xilligaas ma jirin dooda wahaabiyadda ee wejiga dumarka qarisa oo meelaha doodu ka dhalan kara xasaasiyadu ka dhalan karto waxaan u sheegayaa dee buuggu dhinac walba uu yeelan karaa malihii waa dhaliil malihii waa ammaan laakiin mar walba in la horreysiiyo anuu saasaan yeela marka wax akhriyayo dhaliil uma akhriyo wanaagga iyo cilmigana ka helan u akhriyaa aad baad u salaamantihiin wasalaamu calaykum